Dhammaan akhyaarta la socoto cashiradayda waan salaamayaa. Waxaan ka hadli doonaa maanta pumpka iyo waxaan ka hadli doonaa tangiga, especially pumpka, flowga iyo waxyaabaha lagu cabiro. Tangigana xoogga saari doonaa. Cashiro badanaa jiray oon ka hadlay sida loo xisaabiyo tangiga, sida loo xisaabiyo, balse iyo waxyaabaha yani tangiyada kala duwan. Tangi waxaa jiro jiif ah, tangi waxaa jiro tangi waxaa jiro istaagsan, tangi waxaa jiro afka ka xiran, iyo tangi waxaa jiro lagu sameeyo lagu kala saaro. Waxaa ku jiro halka tang adiga biyaa ku jiro, meel wasaqa ku jirto, meel waxaa ku jirto gaasa ku jiro, oo yani 3 shay ama 2 shay hal tang ku jiro. Laakiin tangigan wuu furan yahay, atmospheriga uu ku furan yahay, waa open, ma xirna, afkiisa ma xirno. Isagana wuxuu leeyahay sharci gooni ah, balse muhiimaddu waa maxaa way inaan fahamno tangiyada sida loo cabiro iyo qaabka loo cabiro iyo waxa lagu cabiro. Waxaa soo pump gareynayo andhaha liquidka, waxaa soo pump gareeyay pumpkan, soo pump gareeyay, wuxuu soo maray flowmeterkan. Flowmeterkan wuxuu cabiraa wax kasto flow halkaan mara oo liquid ah oo cabiraa. Kabacdi wuxuu soo maraa check valve-kan uu soo maraa, valve-kan uu soo maraa, kabacdi check valve-kan uu soo maraa, kabacdi haddana flowmeterkan oo totalizer ama totalka cabirayo ayuu soo maraa, kabacdi valve-kan soo maraa, kabacdi halkaan uu soo galay. Markuu halkaan soo maray, tangigan ilaansa uma jeedid waxa ku jiro, waxa ku sheegaya gauge-kana ku sheegaya waa pressure gauge, pressure ku cabira, pressure ku cabira, anything pressure ku cabira, bas pressure ku wuxuu cabiraa tangigan. Based on pressure-kaas aan waxaan ku sheegi karnaa levelka. Kuwa kalena waxaa jiro levelka waxyaabaha lagu cabiro way badan yihiin. Mechanical jiro oo bool halkaan ku xiran yahay, bool kale halkaan ku xiran yahay, bool kale halkaan ku xiran yahay. Waxaa kaloo jiro mid kale oo ku tusinayo levelka intuu marayo saan ugu dhagan, levelka meeshuu marayo kugu dhagan. Marka kaas waxyaabaha levelka lagu cabiro waan ka hadli doonaa iyagoo qaabkii u shaqeeyaan level kastaba. Laakiinse the best oo accurate oo ugu fiican waa pressure-ka. Pressure-ka waa maxay? Wax kasta halkaan ku jiro wuxuu rabaa ahaado, wuxuu ku sheegaa pressure-kiisa. Yes, shaqo yar ay u baahan tahay. Shaqada yar ay u baahan tahay waa maxaa? Inaad calculate samaysid. Calculator-ka si uu sameynay waa high-ga, density-ga waxa inta ku jiro, hadduu biyo yahay, hadduu liquid yahay, hadduu wax kale yahay, density-ga inaad garanaysid waaye. Kabacdi gravity-ga. 3 shay lagaaga baahan yahay. Kabacdi based on that calculation-kaas waa heli kartaa. Simple, easy, intuu joogo tangiga. Marka waxaad ku cabirta pressure-kaas. Overflow hadduu sameeyo intuu ka daadinaa, oo yani biyaha ka batam, kabacdi tangi kale u sameynaysaa ama meel kale ama dib ugu soo celinaysaa. It's up to you meel aad keentidba. Marka tangikan marka wuxuu sameynayaa pressure-ku check gareynayaa, kabacdi markuu soo baxayna waxa baxay
calculate sameynayo. sidaad u jeedid waxaan isticmaalay 1 2 3 4 shay oo cabirayaan isticmaalay taangigan. kana waa maxaa aan dhaho waa computer flow haddaad rabtid ama just waa display iska dhah. kan display waa iska dhah. so kan eliminate waa ku sameyn kartaa labadan laakiin eliminate kuma sameyn kartid. kan sababta eliminate ugu sameyn kartid waxaa dhihi kartaa you know what waxaa soo pump gareynaya I don't care shaqadeedi ma ahan totalka dhan backup. kan waxaan ugu daro waa maxaa way kan iyo kan hadday qalad sameeyaan anything labadan sameeyaan ama qalad dhaco kana u tagaysaa. kan hadduu qalad sameeyo kan qalad ma sameyn karo waa fiirinaysaa. kan inuu shaqeeyo waa kan inuu shaqeeyo waa kan inuu shaqeeyo. marka saddexdan isma qaldi karaan waa la socotaa mar kastaba hadduu mid halaaba midka kale isla markii support ku siinayo. kan hadduu halaabo waxaa totalka ku siinaya kan kuu sheegaya inta soo gashay. kan hadduu halaabo kana kuu sheegaya kan hadduu halaabo kana kuu sheegaya. marka qalad dhan ma dhici karo meeshan waad ka ilaalinaysaa. that is why kaas ugu daray. tan kalena kan markuu cabirayo mar kastaba waxaa la socdo inuu cabiro flowga inuu cabiro temperatureka ka bacdi pressurada haddaa rabtid oo cabiri kartaa. is up to you taas adigay kugu xirantahay haddaa rabtid pressureka inaad cabirtid. pressurekana the more pressure ku cabirtid the more is good sababtoo wax kasta oo qofka hagaajinayo ama waxaad ka sameynaysid safetygiisa pressureka inuu iska ilaaliyo waayo pressureka uu fiiriyo waayo pressureka la socdo waayo taangiga. marka kana waxaan dhahay halkaana inta kuma dhajinin waayo halkaan ugu dhajinin saacadan no saacadan wax kasta soo galo inuu ku dhacdaa rabaa pressureka isla markii sensor gareeyo kuu sheego. markuu high yahana waa la yaqaanaa markuu low yahana waa la yaqaanaa. low markuu yahay waa eber markuu high yahana wuu buuxaa. markuu 50% yahana waa naqaanaa waa sheegi kartaa ilaan saagiisa 100 hadduu yahay aan dhahaa inta 100 hadduu yahay aad 100 aad inta ka heshid ka bacdi aad aragtay 60 pressureka aad fiirisay 60 inuu yahay waxaad dhihi kartaa half uu maraa ama half uu wax yar ka badan yahay kana kuu sheegayo. overflow hadduu sameeyo oo yacni taangiga dami waayo taangiga iska soo pump gareynayo halkan uu ka soo baxaa markaasuu taan kale ku shubaa. akhyaarta cashirkeena oo yacni flowga sida loo cabiro halkan haddaanan sug check valve-ka waxaan inta ugu dhajiyay check valve-ka wuxuu sameynayaa qashinka ka ilaalinayaa kama hadleen taas. check valve-kan qashinka ayuu filter ka sameynayaa. valve-yadan maxay muhiimadda valve-yadan waa maxay inta ka xiray kana saaraysaa. sidoo kale check valve-ga waxa qashinka inta hadduu qashin soo raaco ka ilaalinayo inuu meterkan galo oo meterkan stack ku noqdo. sababta meterkan sida uu shaqeeyna maraa ka hadli doonaa waa turbine badanaa turbine waaye wax wareegsanayo waaye turbine ahaan waaye taasna waan ka hadli doonaa. so valve-yadan markaad kan aad ka saari rabtid intaa ka xiri kan intaa ka xiri ka bacdi kan ka saaraysaa. so taas daraadiisaan aan meeshaas ugu xiray. kana displaygana waa maxaa all information uu ku siinaa. waxaad dhihi kartaa sidee communication u sameynayaan saddexdan shay right sidee communication u sameynayaan. communicationka waxay ku sameynayaan waa maxaa way 485 ay ku sameynayaan serial 485 badankood ilaa iyo meel dheer oo aada communicationkan isagana cashir gooni aan ka hadli doonaa communicationka sidee u shaqeeyaan. markuu buuxsamo kan message oo soo diraa kana uu sheegaa kana uu sheegaa
kabacdi kan markaas uu daminaa ama kana total eg uu ogsoonyahay wuxuu ku buuxsamayo wuxuu fiirinaa kan iyo kan uu fiirinaa kan intuu baam gareeyay okay intaana way ka baxday soo taangiga intaanu maraa kuu sheegaa kanaa kuu sheegaya kabacdi uu daminaa akhyaarta kheyr ayin rajeynaa marka haddaad su-aal kala qabtaan let me know cashirkeena laakiin maanta intaanu noogu dhan qaabka taangiga loo cabiro ama uu shaqeeyo thank you bye bye maca salaama